السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعبد الرشيد علي شيخ محمد شعب كصوماليين. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. آية التفسير كذا وانوصل نقول دونا نيكان مردوبان دغيستay بروفيسور حسن أمره oo ciisaha Jabuutiyaanka oo daaroodka aad u faanayo dhahay daaroodka Soomaalida ayaa u aqli badan. waxaan rabaa بروفيسور حسن أمره jawaabtiisa inaan ku saleeyo asaga inaan warkiisa inaan raad qaado asagii baan raad qaadin warkiisii intaan raad qaad ku sameeyo ayaan waxaan kaga fikir duwanahay ayaan miiska soo saarin. taariikhda meeshuu ka bilaabay waan ka bilaabay. wuxuu ka bilaabay Sayd Maxamed Cabdilla Xasan iyo 1900. anigana ciwaankaygu waxa weeye taariikhda Soomaalida waxa weeye ciwaankaygu Professor Xasan Amare. Professor Xasan Amare waxaan ka soo horjeediyay taariikhda Soomaalida iyo qabiilka daaroodka 1900 ilaa 2023. ciwaankaygu waa saas. isaga Professor Xasan Amare ninkan ciiso Jabuutiyaanka wuxuu leeyahay 1900 Soomaaliya waxaa ka soo baxay sayidka Ingiriis buu la dagaalamay daarood buu ahaa. qabiilkii Ingiriis la dagaalamay oo 1900 sayidka la socday daraawiish bay ahaayeen, dhulbahantay ahaayeen. dhulbahantana waa daarood. wuxuu yiri Siyaad Barre oo Ethiopia qabsay 1907 daarood buu ahaa, mareexaan buu ahaa. ilaa uu soo gaaray Laascaano 2023 maantay Abriil kowdeedii. wixii taariikh Soomaaliya ka dhacay oo dhan wuxuu yiri Professor Xasan Amare daaroodka waa geniuska Soomaalida oo waa milxa Soomaalida oo waa cusbada Soomaalida oo waa liindhanaanta Soomaalida oo iyaga taariikhda kow ka ah. marka warka waxa laga yiri ninka la yiraahdo Professor Xasan Amare waa laxba laga yiri waa lax waa laxba laga yiri. waxaan ka wada waa sheeko aan ka dhageystay nin Sheekh Khalid oo qaraabanahay oo Cali Xuseen oo reer Gada ah. aniguna waxaan ahay Reesa Xuseen oo reer Mudug baan ahay. marka ninka waa nin sheekho waxaan ku bartay masaajidka 12 ka Nairobi 2015. hadda Australia iyo aad u guuray baa lagu lahaa. wuxuu ka sheekeeyay Sheekh Khalid sheeko la yiraahdo waa laxba laga yiri. waa laxba laga yiri waxa nin lax wata ayaa qolo tuuga ay qabsadeen meel magaalo ah. marka waxay rabaan inay laxda ka xoogaan. ninkii waa diiday laxdii in lagu xoogo. marka waa la qabsaday. boolis baa meeshii yimid, stage-kii baa la geeyay. tuugadu marka waa 3 nin buu mise 4 nin. Sheekh Khalid markii saligii booliska la tagay oo tuugadii 3 mise 4 la warsaday waxay dhaheen wankan annaga iskale, ninkan baa nagu haysta. 3 baa marqaati. nin baa ku qabsaday, labada kale la tuugtan oo marqaati kacaya. waxa leeyihiin wankan asaga wuxuu leeyahay wankan ana iskale, ninkan baa igu haysta. waa kii tuugaha. labadii kale oo tuugna waxay leeyihiin wankan ninkan baa iskale, waa tuugii saaxiibkooda ahaa oo mar awal hore ay ku soo heshiiyeen
in ninkaa laxdiisa lagu qabsado marka laxdu wan bay u ekayd waa bari weyneyd marka wan bay u maleeyaan wuxuuna wan mahana waa lax laakiin ninkii iska lahaayo inuu gata rabo suuqa keensay wuu yaqaan in waxaan laxta aysan wan ahayn saddexdii tuug markii midna laxdii yiri waa wan labana uga marqaatay kacaan baaliye ninkii laxda iska lahaa war haye ninkan wankiisa maxaad ugu qabsata marqaati buuna haystaa labada nin baa marqaati adigu marqaati ma haystaa inaad adigu wankan leedahay wankii intuu baridii fayday buu wuxuu yiri horta bal fiiriya waxaan ma laxba mise waa wan waxa la yiri waa lax hadda marka waa laxba laga yiri kii tuuga labadan marqaatina waa laxba laga yiri waxaan horta ay wan ku sheegayaan wanba ma han buu yiri Sheekh Khalid waa lax buu yiri ninkii laxda mootay halkaas marka saddexdii tuug lagu xiray ninkiina laxdiisii uu ku kaxaystay wixiina wan ma hayna lax bay ahaayeen mahmaadan anigu mahmaay Professor Xasan Amare waxaan ka wadaa Professor Xasan Amare ninkaagan ciiso Jabuutiya gaw ya akhi waxa weeye taariikhda Soomaalida dhan bay ka dhaxaysaa daaroodna gaar uma leh arintan leedahay genius weeye daaroodka oo Soomaalidu ka aqli badan yahay waxa weeye daaroodka Soomaalida kama aqli badan geniusna maaha Soomaalidu la mid yahay wixii Soomaalidu tahay ayuu yahay daarood haddii daarood genius yahay Soomaalidu kulli waa genius waa dad aqli badan ciisahaba ka bilow hadaa rabtid haddii heer xamar baraadilgu uu genius yahay ciisaha iyo daaroodkuna waa genius qof walba Soomaali ah qofka kale wuxuu yahay wuu yahay sababtu dadkan waa isku ayagoo dhan baa waxay yihiin dad is wada dhalay waa abti waa ilma adeer waa mataqaana xidid waa isku degaan waa dad wax walba wada ah dhankan aadaba waa isku mid marka dad la kala sara marin karo oo midna laga dhigi karo inuu genius yahay midna laga dhigi karo inuu san ahayn ma ahan ninkii le Professor Xasan Amare Soomaalidu haddii diin laga hadlayo waa isku mid haddii dabci laga hadlayo waa isku mid haddii dhalasho laga hadlayo iyo abtirsiyo waa isku mid waa dad isku hal qof weey meel loo kala saaro iyo cid sareysa iyo cid laga sareeyo iyo cid fiican iyo cid xun midna ma jirto ninka la yiraahdo Professor Xasan Amare taariikhdii sayidka markaad raad qaado waxay ku geeyaysaa Sheekh Bashiir oo burca ay Ingiriis ku dileen oo sayidkii daraawiishta markuu jabay mar labaad abaabulay dagaalkii daraawiishta nin isaaq uu ahaa daarood ma ahayn nin diru ahaa daarood ma ahayn nin irir Soomaali ahaa daarood ma ahayn Sheekh Bashiir waana la daldalay burca lagu daldalay waa taariikh la yaqaan oo sayidka loo yaqaan waliba sayidka dhalay baa la sheegay cidiisa dhashay oo reer abtayga u ahaa reer Cabdillah Xasan baa dhalay سيد محمد عبد الحسن كاس دلay gabar ah baa dhashay saasi sheegayaan qolada taariikhda ka sheekeynaysa taas waa mid waa sayidkii iyo dhul bahantii taariikhdooda dawladan casriga oo hadda xaasi maxamed xurikay 2023 lixdankii ninkii calanka keenay oo aaday New York oo Soomaaliya calankeeda soo qaaday وان إير سمالا أو هوية أو هبر جيرة أو صعبة أو نمعالة وعبد الله عيسى محمود دارودنا ماهين مريحانا ماهين أوغادينا ماهين لول بهانتانا ماهين حارتينا ماهين لال كسانا ماهين يوسف دارودنا ماهين عيسى دارودنا ماهين عبد الله عيسى محمود نين اللي يقانوي دولدان عصرقا نيكا كاني يعالن كبلوكا وانيكاس إيساقا مركو نيويورك شوغي magaalada London oo ka soo hadlay hadda aniga Cabdishaal Sheekh Maxamed ayaa safarkii lacagtii kala gooday niman joogay oo reer waqooyi ahaa oo isaaq iyo dhulbaanti warsangel isku daray oo nimankii badmaaxa ahaa oo Cardiff iyo joogi jiray meesha la dhaho Liverpool ayaa lacagtiisii iyo diyaaradii iyo tigidhka u soo gooyay oo ninka ama bixiyay markaana isaaq iyo dhulbaanti warsangel Soomaali ahaan iyo ninkan oo معان قرا سعد iyo habar gidira waxay u wada socdeen Ingiriis iyo Talyaani iyo Faransiis Jarmal baa la shaqeynayeen reer Yurub iyo waxa loo dagaalsanaa iyo Soomaali magaca Soomaali ay ku wada socdeen Professor Xasan Amare marka New York markii la tagana
waxaa la socday michael maryama oo isaaqayo habar jeclaha oo weliba gaal ahaa aan muslimba xataa ahayn cadan waxaa joogay nin kale oo isaguna uu ku sheegayey magaciisa lagu sheegayay salool alexander salool oo asna isaaq ahaa habaru ka yaqaan oo lawyer ahaa michael maryamana asna lawyer buu ahaa ka cadan fadhiyana waxaa la sheegaya waraqaha lagu doodayo cabdullaahi ciise uu New York kaga doodayo inay xornimo rabaan talyaaniga ka rabaan inay ka madax banaanaadaan oo calankooda qaataan oo xuruubaan 48 marka dooda socotay 49kii ninka waraqaha soo qoray ninka isaaq oo cadan fadhiyo lawyer-ka buu ahaa oo la oran jiray sida lagu sheegayo alexander salool markii la joogo meesha lagu wada hadlayo New Yorkna waxaa ag fadhiyo hadalka u toosinayo cabdullaahi ciise maxamuud michael maryama oo isaaq habar jecla ahaa gaalna ahaa weliba kristaan sida kaasba kristaan u ahaa oo joogay cadan oo ahaa magaciisu ahaa alexander salool lagu sheegayo waayahay kharashka maxkamadda lagu doodayo New York yaa bixiyey cali nuur oo yuu ahaa nin isaaqa oo hargeysa jooga oo taajirka hargeysa ugu taajirsan ahaa ninkii baar ismaaciil lahaa xamar dadkii joogi jiray way garay baar ismaaciil ninkii lahaa asagana isaaq kale ahaa ninkaasna kharashkii lagu doodayey oo talyaaniga in lagu xurubo New York looyarada lagu qabsanayay oo la bixinayay ninkaas asna waxbuu ka bixinayay asna isaaq kale ahaa labadaba isaaq way cali nuurna isaaq buu hargeysa joogay ismaaciil oo ninkii baar ismaaciil xamar lahaana asaguna wuxuu joogay isaaq buu ahaa asaguna labaduba professor xasan amarow daaroodna ma ahayn laba ir Soomaala oo dir ah oo isaaqa bay ahaayeen labada nin oo taajiriintaana ku darso dagaalkii 64 xataa markii hal tiknook lagu dagaalamayo oo taangi ahaa oo joogay hargeysa oo Itoobiya 64 difaaci markii birtii ka jabtay oo bir la waayay magaalada London ka soo hadlay ninkii birtii ka dalbaday oo lacag soo dhiibay wuxuu ahaa caluur odaga caluur oo isaaq ah cali nuurna daarood ma ahayn ismaaciilna daarood ma ahayn laba taajir oo isaaq oo hargeysa joogay ahaayeen maxaa ku xigay dagaalkii 77 iyo maxamed siyaab bare golihii sare cali samatar xuseen kulmiye afrax ninkii la oran jiray axmed saleebaan dafle ismaaciil cali abubakar intaas oo golaha sare baa dagaalka go'aaminaysay maxamed siyaab bare madaxweynaha laakiin raggaas ayaa dagaalka laftigooda iyo go'aan qaadashada kamid ahaa macnaheedu waxaan kaaga wada professor xasan amarow dagaalkii 77 Soomaalidu waa wada galeen wala madaxweyne wala shacab qof aqligiisa la haray iyo qof xoogiisa la haray iyo qof dhaqaalihiisa la haray midna ma jirin magaceedana maxamed saabara kaliya kuma amaano Soomaali oo dhan baa ku amaanan hadii la yiraahdo shacab ahaana meesha dagaal ka dhacay oo jigjigay iyo dadkii u xigay ogaadeen iyo waxay ahayd nimanka isaaqa dhamaantood ogaadeenna qabiil ahaan buu ku galay sidoo jabhad u galay isaaquna dhaqaale iyo baabuur iyo shidaal iyo waxay ku galeen xataa shacabkoodina waa galeen raashinka iyo daawada iyo mataqaana xoolaha geel la cunayeen isaaq baa iska lahaa baabuurta shacabka oo isaaq baa dagaal ku jiray shidaalka iyo raashinka isaaq baa iska lahaa dagaalkii 77 taasa laga yiri professor xasan amarow maxaa kale ku soo haray aswaal oo cabdullaahi ciise maxamuud madax u ahaa jabuutiyaan baa ku jiray aswaal jigjiga balcad laga soo ururun jiray jabuuti balcad laga soo ururun jiray hargeysa ku jirtay aswaal waa laga soo ururun jiray NFD baa aswaal kamid ahayd waa laga soo ururun jiray xamar baa lagu soo ururun jiray qofka soo Soomaaliya shanta qaran meel ka jooga dalideedba aswaal uu ka tirsanaa lacagtana waa soo diray lacagtaas aswaal lagu la dirirayay Ingiriiska tan si dalka looga saaro Soomaaliya oo dhan baa ka koobnay ayadii aan kuugu noqdo marka ayadii tafsiirkeeda aan kuugu noqdo iyo dantan kala aha ayadan ku soo qaaday ninka la yiraahdo professor xasan amarow ayada wuxuu ilaahay kaga hadlayaa qala ta'ala watlu عليهم نبأ ابني آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك
قال إنما يتقبل الله من المتقين ولبدي ويل أو نبي آدم دلي markay gabar isku qabsadeen ninna rabbi iyo rasuulkiisii iyo nabigiisii nabi aadan oo aabihina ahaa waa u hoggaansamay oo waa habiil qaabiilna waa diiday rabbina waa diiday amarkiisii nabigiisii oo haddana aabihii ahaana warkii nabigana waa diiday aabihina waa diiday oo aadam ahaa oo nabigiisana ahaa kadib si loo kala saaro waxaa la yidhi meel sadaqa geeya sadaqada markaad geysaan dabkaa cunaya tii la aqbala midii laga tago dabku cuni waayana lama aqbalin ilaahay ma aqbalin labadii sadaqo tii habiil baa ilaahay aqbala tii qaabiil lama aqbalin kadib qaabiil waa xanaaqay wuxuu yidhi habiilkan horta waa inaan dilaaba waa dilay sidii buu ku dilay sidii buu dembiile ku noqday waxaan kaaga wadaa professor xasan amarow soomaalidu waa sida habiil iyo qaabiil oo kale waa dad wada soo aadan nabi aadan soo ma dhalin dadkan waa dad isdhalay soo walaalo ma ahayn habiil iyo qaabiil soomaalidu walaalo way kulligood maxaa luu kala fadli badan yahay oo luu kala fiican yahay waa in qofkii rabbi maqlaya oo habiila ayaa ka fiican qaabiil oo rabbigiisii diiday inuu maqlo qofkii nebi aadam warkiisii qaatay oo habiila ayaa fiican kii diiday nebi aadam hadalkiisii oo qaabiila baa xun kii waalid caasi noqday oo aabbihii warkiisii diiday oo qaabiila baa xun kii aabbihii warkiisii qaatay oo nebi aadana oo habiila baa fiican miisaanka wax lagu cabirayo professor xasan amarow ma ahan qofka daaroodka ahu inuu irir samaale kaga fiican yahay inuu daarood yahay iyo nasabkiisa maaha waxa luu kala fiican yahay waa sidaan ficilkan habiil iyo ficilkan qaabiil labadan ilmo aadana oo nin rabbi iyo nabigiisii iyo aabbihii warkoodii yeelay nina ilaahna diiday nabigiisiina diiday aabbihiina diiday fiicnaantu marka halkaas iyo xumaantu halkaasay ka imaanaysaa waa qofka camalkiisa wey hadduu qofku camal fiican leeyahay waa qof fiican haddii qofku camalkiisu xun yahay waa xun yahay hadduu asagoo daarooda camalkiisu xumaado waa xun yahay daaroodnimadu waxba u tari mayso qaala rasuululahi sala allahu alayh waaalih wasalam man bataa camaluhu lam yusrac nasabuhu qofka camalkiisu dib u dhigo qabiilkiisu qiyaamaha horay keeni maayo janno geyn maayo wey waxaad horay ku imaanaysaa oo janno ku gelaysa aakharo waa camalkaaga fiican waxaad naar ku gelaysaana camalkaaga xun wey sidaa awgeed professor xasan amarow taariikhdii axmed gurey oo mareexaanku ay sheegtaan inuu nin mareexaan ahaa oo niman reer garaad la yirahdo ay dhahayn annagu ahaa soomaaliduna way sheegataa ninkaas dagaalkaasna waa ku wey jirta soomaalidu oo diinta lagu difaacayay axmed gurey tii sayid cabdilla xasanna soomaalidu kulli waa ku jireen dhulbahanta ha u badnaado sayid cabdilla xasan ogaadin ha aada laakiin soomaalida ka mid bay ahayd sayidkii markii uu dhintay ninkii booskii la wareegay oo dagaalkii dib daraawiish u abaabulay nin isaaqu ahaa waa nin kuu sheegay sheekh bashiir oo ingiriis burca ku deldeleen marka tii 60kiina waa lagu wada jiray cabdullaahi ciise maxamuud ba calankaa soo qaadee soomaali shanteedaba dhaqaalaha iyo cilmiga iyo caqliga xoogga way ka midaysnayd cabdullaahi ciisaas loogu magac daraa maadaama calankii uu keenay bas waa aashe maxamed siyaab barre iyo dagaalkii sabana soomaalidu waa ku jirta kulligeed maxamed siyaab barre ha loogu magac daro midaanba hadda 20kii jabuuti waxaa ku aas-aasay ismaaciil cumar geelle waxaana madaxweyne noqday nin asna irir ah oo cabdiqaadir salaan xasan ah markii Soomaali 10 sano diriraysay xamar baa la keenay 4tii sano
cabdilqaasim wuxuu ku dhammaystay nabad iyo wada hadal iyo cid kasta inay wada hadlaan isagoon qofna dilin cidnana dembi ka gelin ayay ka dhammaatay. cabdullaahi haddaad ku ammaantay inuu amxaare inta keensaday soomaali badan xamar joogtay oo hawiye u badan uu laayay, waxaa ayadana ammaanan cabdilqaasim oo 4 sano hal xabadna qofna ku ridin, gar iyo wada hadal abgaal iyo wixii kaloo hawiye joogay murursade iyo habar gidir inta hor fariista dowladdii aan ka keenay carta oo jabuuti lagu soo dhisay oo ismaaciil cumar geelle iyo nimanka ciise ay carta ku dhiseen aan wada dhisano oo caasimadii baa la joogaa hawiyaa degan kaalaya abgaalow aan wada dhisano dowlad soomaali aan samayno maadaama shacabkii soomaalina doorteen annaga hawiyaa kaalaya ayay 4 sano kaga dhammaatay. kadib waxaa bedelay shariif sheekh axmed, waxaa leeyahay cabdullaahi yuusuf baa bedelay. cabdullaahi iyo cali maxamed geedi xabad bay ayaguna magaaladii la soo galeen, intay leyn karay laayeen, calankiibay ka taageen madaxtooyada oo uu haystay wiil la yirahdo xuseen caydiid oo u diiday inuu soo fariisto cabdilqaasim salaad xasan oo yiri annaga sacad baa iskale meeshaan. cabdilqaasimna lambar 4 madaxtooye ka samaystay, haddaba loo yaqaan madaxtooyadii cabdilqaasim salaad xasan. cabdullaahi iyo ninkii cali maxamed geedi inay madaxtooyadii ka qaadaan xuseen caydiid, calankii soomaalina saaraan, madaxtooyadiina la furo, intaasay keeneen. dad badanna waa ku laayeen meesha ayaga maxaradii oo soomaali ah. marka taariikhdu dhinac qaraarna way leedahay. xasan professor xasan amarow ninkaagan jabuutaan ciise dhinac wanaagsanna way leedahay. waxa dhinaca qaraar samaynaya waa soomaali, waxa dhinaca wanaagsan samaynayna waa soomaali, abtirsiyana ma kala leh. waxa dhinaca qaraar sameeya daaroodku waa ka mid, cabdullaahiba waa ka mid, waa daarood asaguba. waxa taariikhda wanaagsan sameeya nimankan la dhaho irir samaaluhuba waa ka mid, jabuutiyaan ciise waa ka mid, isaaq waa ka mid, hawiye waa ka mid. cabdullaahi ciiseba waa ninkaas taariikhda wanaagsan iska leh oo calanka keenay. marka dad daarooda wanaag waa samayn karaan, dad daarooda xumaan waa samayn karaan, dad irir samaala wanaag waa samayn karaan, dad irir samaala xumaan waa samayn karaan. taasna waxay noqonaysaa nasabiyad u noqon maysa, camalkay u noqonaysaa. oo qofkii camal samaysta fiican isaga ayaa camalkaas khayrka uu sameeyey miraheeda asagaa goosan. qofkii xumaan sameeya oo camal xun sameeyana camalkaa xun mirihiis asagaa goosan. abtirsiyana camal xun waxba kama taro, camal fiican waxba kama taro. abtirsiyu waa nasab qofka cidda dhashay lagu aqoonsanayo. markuu gabar weydiisanaya si loo garto uu dhahayo ina cali miraan ah, yaad ka tahay reis yaa xuseen, yaad ka tahay mareexaan, yaad ka tahay daarood, yaad ka tahay soomaali. waa saas oo kale wey. sheekh xasan barsame oo ka dagaalamayey koonfurta soomaaliya gaal jecel buu ahaa. la foole wuxuu ku dhammaaday dir bay ahaayeen, biyo maal bay ahaayeen, wacdaan bay ahaayeen oo la dhashay abgal cismaan iyo wacdaan cismaan wey. moobilan cismaan ayaa ku dhammaaday balcad iyo inta u dhaxaysa afgooy. waa moobilan cismaan ayaguna waa cismaan daarandoole, waa niman mudulood ah. marka iyadoo dhan meel kastoo aad taariikhda aad raadiso professor xasan amarow soomaalidu waa ku wada jirta, ayadoon dir iyo daarood iyo jareer weyne iyo reer xamar banaadir iyo digil iyo mirifle u kala maqnayn ayay taariikh kasta iyo dhacdo kasta oo meel ka dhacda geyiga soomaaliya, shanta soomaaliya way u wada jirtay. laakiin xaaladooba waxay leedahay akhrinteeda gaarkaa iyo dhacdooyinkeeda gaarkaa iyo dadkii matalayay dhacdooyinkaas oo agtarada ka ahaa bay leedahay. hadda laascana waxa ka socdaa waa barnaamij qabyaaladaysan oo dembigeeda uu leeyahay muuse biixi iyo odagaan la yidhaha muxuu ahaa hebel gaal, saleebaan gaal ay leeyihiin, iyo maxamed kaahin iyo janankan muxuu aha magaciisii nuux taani. nimankaasaa qabyaalad iyo gardarro iyo dulmi laascaano
ilaa 2007 ku joogay haddana dadka kulaynaya ilaa maantan hadda hadlayo April 1 ay tahay 2023 marka dulmigaas qabyaaladeysan oo gardaraysan waxa iskala Muuse iyo kooxdiisa isaaquna qaarna waa ka soo horjeeday waa diiday qaarna waa raacsan yahay waa sida bini aadamku dhan yahay way oo hadda isaaqu kulli kuma faraxsana kuma wada raacsana Muuse bixi iyo ina kaahin iyo Saleebaan Gaal iyo Nuuxtaani inay ilaa 2007 dhul baantaa kulaynayaan magaalada Laascaano gudaheeda haddana ay madaafiic ku qaraacayaan maantan ugu dambayso dawladda hoose meesha ay kulaynayaan shalay ahayd shalay madaafiic la sheeg soo qaraaceen maantana ay soo weerareen Laascaano waa barnaamijkaas qabyaaladeysan oo qariban Muuse iyo kooxdiisa wata waayaha iyo waqtiga wata waa wax ilaa 9 soo socday oo qabiilba qabiil ku duulayay marka hadda isaaq duulaana oo dhul bahante Laascaano ku duulaya 9 bilaabatay nimankii jabada dalkan burburiyay 9 ayaa bilaabay taasay kamid tahay marka oo hadda Muuse taariikh cusub ma keenin dagaalkii qabiilka oo qabiil loo dagaalamayay oo abgaal iyo habirgiir xamar ku dagaalameen ogaadeen iyo majeerteen ku dagaalameen mataqaana meesha la dhaho magaceeda Kismaayo Mareexaan iyo majeerteen Kismaayo ku dagaalameen hadda Axmedow ogaadeen iyo Mareexaan Kismaayo loo kala tagay oo Mareexaan gada aaday asaguna Mareexaankii gado ka tagay iyo kuwii caawa ka tagay wuxuu ku haray Kismaayo uu qowracayo khaasatan reediiniga oo calaamasaday uu qowracayo saacadan marka dagaalka uu ka wada Muuse bixi Laascaano oo dhulbaante qowracayo Axmedow ogaadeenaba Mareexaankii khaasatan reediiniga uu ku qowracaya Kismaayo gudaheeda ninka la yiraahdo Professor Xasan Amarow al-shabaab dadkii bay ku qarxinayaan xamar dadkii bay ku ceelbur ku qarxinayaan waa Soomaali iyaguba balaayadan degmaysanaysa marka oo nimanka xalna wada ay wadaan nimanka xalna nimanka fadhiya magaalada Muqdisho xalane niman ku xareysan balaayay sharta ay wadaan oo ilaa Soomaaliya 9 ka wadeen oo Soomaali isku dirahayeen qabiil isku dirahayeen nimankaas oo reer galbeedna xukuma carabna ku xigto Afrikaanna ay 30 soo kireysteen carabta iyo mataqaana reer galbeedku ayaa ku lug leh dagaalka Laascaano iyaga Muuse iyo u kaba gelinaya qabyaaladiisa asaga iyo kooxdiisaba waana shidaalka ku jira ceelka holhol waxa Mareexaanka loogu leeyahay Kismaayo Axmedow iyo Imaaraadka iyo Kenyaatiga wata waa ceelka baar dheer oo shidaalka Professor Xasan Amarow meesha hungurigii baa galay Laascaano shidaalkii holhol baa galay oo ka galay nimanka xalna fadhiyo reer galbeedkii carab dalkan ku soo duulay Afrikaanka calooshooda u shaqaysanaya 30 kuna oo ay keensadeen meesha oo ay ku masruufaan marka waa barnaamij ay rabaan shidaalkii holhol inay ku qaataan qolada xalna fadhida shidaalkii baar dheer inay ku qaataan kuwa xalna fadhiyo oo sheeyaha iyagaasa Muusana isticmaalaya Axmedowna isticmaalaya al-shabaabna isticmaalaya wax alla waxa shaydaan ah iyo wax alla waxa xun ah oo Soomaaliya ka dhacaya aabe iyo hooyo waxa uu nimanka xalna fadhiya oo reer galbeedku madaxda u yihiin carabtuna ay ku xigaan Afrikaankuna lagu shaqaysto oo mushaar la siiyo oo carabtiya reer galbeedku mushaarka siiyaan marka barnaamijku ma ahan daarood baa ka fiican irir Soomaali iyo daarood baa ka fiican Isaaq iyo daarood baa ka fiican Ciise iyo daarood baa ka fiican Hawiye iyo daarood baa ka fiican Digil iyo Mirifliya daarood baa ka fiican Jareerweyne Raxmar Banaadiriye arintu halkaas ma ahan way ka qaldantay Professor Xasan Amarow waa fidno iyo balaayo shidaalka Soomaaliya badi bir ku jira iyo macdanta iyo uraniumka dhul Samareeb iyo gaaska afgooye ay nagu haystaan nimanka reer galbeed oo xal noo soo fariistay carabna soo kaxaystay Afrikaanna soo kireystay fidnada ku jirta Soomaaliya iyo balaayada baasku Professor Amarow Xasan Amarow waa nimanka xalna fadhiya hadaad cid farta ku fiiqayso oo cid aad dhaliilayso dhaliishu irirna maahan Isaaqna maahan Ciisana maahan daaroodna maahan Digli Miriflana maahan Hawiyana maahan Jareerweynena maahan Raxmar Banaadiri maahan fidnada iyo balaayada Soomaaliya ilaa 91 ilaa iyo 77 ilaa iyo 60 waa gumaysigii reer galbeedka oo haba meel loo soo jiray haba meel noogu soo gabanayay haba dad Soomaali isticmaalayay ama jabhadade ama itixaade ama
waxaa dhahdaa mataqaana islaax dheh ama ikhwaan muslimiin dheh ama al-shabaab dheh waxaa rabta ku sheeg wax alla waxa fidna soomaaliya ka taagan oo jabuuti ka taagan oo kilka shanaad ka taagan oo NFD ka taagan professor xasan amarow waxaa ka wakiila reer galbeedka iyo carab iyo afrikaan intaasaan warkaygii aan kugu mahmahay oo laxba laga yiri aan kugu mahmahay sheekadii Sheekh Khalid halkaasay ku dhamaatay ninkii le professor xasan amarow jabuutiyaanka aan ciisaha how marka waa inaad macnaha arrinta saa u fahantaa daaroodkana Soomaalidu ka mid yahay ciduu ka jiniyeysan yahay ciduu ka aqli badan yahay ma leh barnaamijkeennana in aan u kala baxna daarood iyo irir Soomaali iyo reer xamar banaadiri iyo tirar weyne iyo digide mirfle waxaa maslaxad ugu jirta professor xasan amarow nimankan xalna fadhiyo reer galbeedka iyo carabta iyo afrikaanka raba inay shidaalkanaga iyo dahabkanaga iyo macaantanaga iyo uraniumkanaga qaataan oo ku qaataan daarood baad adigu tahay adiguna irir Soomaali tahay adiguna tirar weyne tahay adigu reer xamar banaadiri baa tahay adigu digile mirfle tahay ayagu maxay yihiin professor xasan amarow bal anu daarood baan ahay adiguna irir Soomaali tahay nin waxaa tahay dirho ciisa muuse bixi wan isaaq xasi maxamuud wan hawiya horta bal kuwan xanoo fadhiya xalne oo cadcado indhaha buluuga leh oo reer galbeedka ah oo Ingiriis iyo Mareykan iyo Faransiis iyo Talyaani ah iyo Jarmal maxaa noo keenay ayaga oo xamar fariisiya xalane carabtan maxaa noo keenay imaaraad iyo nimankan la dhaho Masar iyo Sacuudiga oo nimankan gacan yaro u ah reer galbeedka si nolo burburiyo nolo gumaysto hantidanada iyo khayraadkanaga loo xado maxaa saddexdan carabtan noo keenay Iiraan maxaa noo keenay imaaraad maxaa noo keenay Masar Sacuudi maxaa noo keenay xalna soo dajiyay afrikaanka Ugandhiska sodonka kuna oo Uganda ugu badan maxaa noo keenay Burundi maxaa noo keenay maxaa Kenya noo keenay Ethiopia maxaa noo keenay annagu dad wada dhashay baan nahay waxanaga ama aan ku dirno ama aan ku heshiino ama isku qabsano ama maxaan ku raahdaa aan ku kala tagno ama isku soo dhaweyne waxba naga dhaxaya diin baa naga dhaxaysa dal baa naga dhaxaysa dhalasho naga dhaxaysa kursiga madaxweynaha naga dhaxaya bangiga dhaxa naga dhaxaya horta kuwan maxaa noo keenay professor xasan amarow adigu soo kuwan Soomaalida barnaamijkii qabyaalada in lagu kala qaybiyo ay reer galbeed iyo ay carab iyo afrikaan noo keensadeen maxaa durbaanka ugu qaraacaysa ma ayaga indhaha ku taagtid oo fiirisid oo dhibaatada waxa wada kuwa xan la fadhiyo oo reer galbeed iyo carab iyo afrikaan oo dalkan iyo annaga Soomaaliya isku haydiraan oo nugumaystaan khayraadkanaga xadaan inay rabaan halka foxki iyo xooga ma saarti maxaad u leedahay daarood baa ka fiican Soomaalida kale maxaad u leedahay daarood baa genius maxaad u leedahay daaroodka milaxa Soomaalida wey maxaa Soomaalidii barnaamijka ay reer galbeed iyo wateen carab iyo afrikaan si la suuq ayda la suuq diro la suuq qaybiyo maxaad uga qayb qaadanaysaa professor xasan amarow qabyaalada asalkeeda iyo faraceeda bilow alif ilaa ya kow ilaa boqol waxaa keenay Talyaani Ingiriis Mareykan Jarmal Faransiis ayaa keenay Portugiis kuwaas noo keenay Soomaaliya qabiil ma aqoonin ayaga keenay haddana ayaga wado ku shaqeysta Congress-ka sheegayso leedahay gabar ma jeerteen baa ka ah oo daarooda xildhibaanka sheekayga Sheekh Albani anuna aan ku raacsanahay wuxuu qabaa qof muslim ma gali kara baarlamaan gabadha aad leedahay daarood weeyo oo Brussels iyo EU way fadhidaa Sheekh Albani sheekayga anuna aan ku raacsanahay wuxuu taagan yahay baarlamaan gal qof muslim ma gali karo maxkamadda asheegtay Cabdi Qawi ayaa ma taqaan madax ka oo Nairan Heeg iyadana waxaan ilaahay xukumin cid wax ku xukunta ilaahay wuxuu yiri waa gaalo ilaahay wuxuu xukumay waxaan cid wax ku xukunta ilaahay wuxuu yiri waa zaalimiin wixii ilaahay xukumay waxaan cid wax ku xukunta ilaahay wuxuu yiri waa faasiqiin taasna saasa laga yiri oo marka dhulkan gaalada daaroodka yimid haday ku biireen baarlamaanadii iyo maxkamadihii gaalada ay lahaayeen inay saxan yihiin ma diinta islaamka marka loo fiiriyo waa qaldan yihiin Sheekh Albani ayaa yiri oo laga daba hadlin cidna ka daba hadlin waxa muslim oo ka daba hadli kara wax ka daba nacnacleeyo wala helaya Sheekh Albani oo mantaqal iska xagta oo iska cidiyeysta wala helaya oo akhlaaq lahayn laakiin aqoon diineed cid ku dhan 100 sano oo la soo dhaafay wali marka xagga xadiis laga hadlayo iyo sunnadii nabiga ma jirin marka
maxkamad gaalna qof muslim kama shaqayn karo baarlamaan gaalna qof muslim ma geli karo sheekh albani baa yiri allah u naxariista intaasay noo joogaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo Professor Xasan Amare oo ah nin Jabuutiyaana baraha bulshada ka hadla oo Ciise nasabkiisu Soomaalida waxaan leeyahay qabyaalada waxaa sameeyay Ingiriis Talyaani Faransiis American iyo Jarmal nimanka reer galbeedka Carabtuna waa sii badisay lacagtii lagu badin lahaa ayay bixiyaan Carabtuna marka waana adinka sidii caalamka la idinkaga tirtir lahaa adinka Soomaalida qabyaaladu waa barnaamij ay shisheeye wataan reer galbeed iyo Carab ka yihiin hadafka in lagu gaar rabana waxa weeye in Soomaalida lagu tirtiro khayraadkeedana lagu qaato dhulkeedana lagu qaato diinteeda islaamka lagu bedelo oo lagu gaalaysiyo sidaas ayaan anigu aqaanaa dad badan oo Soomaaliyana waa igu raacsan yihiin oo informationkaas haya oo saa u sheegay inay sax u tahay u garanay intaan hayna ana idin sheegay saas u qaata arintaas u fahma daarood cirbad carada dheer Soomaali qof kale oo Soomaali ma jiro marka Professor Xasan Amare waxaan kula talin inaad xoog saarto hadalkaaga nimankaas xalna fadhiya oo reer galbeedka iyo Carabta iyo Afrikaanka isugu jira wax alla waxaad aragtay oo laascaana ka socda ama meel ka soo Soomaali ka socda ama Kismaayo ka socda ama Garbahare ka socda iyo diyaarada lagu duqeynay Garbahare balaayadaas iyo baaskaas oo dhan waxa laga maleegaa oo laga falkiya oo laga amra xalane shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad baa u mahadsantiin wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته